السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أنا سلام يا دمان أصحاب تقاليقا كحيران حمسة أوفيشيال وولاشين حمسة دائما عثمان وين سلامة سؤالة قاع فرن قلب فرنيت صافية كسو دواذا وورين waxaan jeclaynaa caafimaad qabtaan walaalahay ka qaariga sida anagu caafimaad qabno soo laabanaysa ujeedaanba ilaahay ayaa taas ku mahadsan mar labaad iyo mar saddexaadna soo dhawaada gacmo furan qalbi furan channelku waa channelka walaashin dar ilaahay subscribe igu saara hawada igeliya waxaan leeyahay subscribe ta ii saara like ta saara comment ka dhiibta gambaleelkana furta aad iyo aad ayaan mahadsantihiin share gareeyo si fiidiyoga asxaab fara badan u gaaro aad iyo aad baan mahadsantihiin waxaan idin leeyahay like ta iyo daawashadaas ilaa ka taw barnaamijyo kala saan ugu soo geliyo insha Allah inaan ka heshin in kala soo ku kala ogaanaya waxaan rabaa hawada ilaa gelisaan qof walba oo YouTube ka soo gala hami ayuu ka leeyahay marka walaalahay ka qaariga aniga hami ayaan ka leeyahay subscribe badan ii saar heerka aan rabo si aan u gaaro aad iyo aad ayaan mahadsantihiin asxaabta qaaliga ku xiran walaashin xamsa official walaalahay baatiin waxaan leeyahay laantii wax kala soconaya malahan marka aad iyo aad baan kaga mahad celinayaa taas saa ogtiin maanta video cusub baan idin hayaa waxaan kaga hadli doonaa insha Allah qaybta dambe video ayaan ku soo darayaa soo dhawaada saa ujeedaan ba asxaabay waxaan ka hadlayaa gabadha walaasheen oo Safiya Tusma sawirkeeda halkaan ayaan soo saaray sida ujeedaan sawirkeeda idin muuqdo gabadha ayaan ka hadlayaa gabadhan walaasheena oo sida ogtiin ba laga jabsaday telefoonkeedii wixii ku jiray sawir ciyaalkeeda ayada ayaan sawir aan loola wadaagi karin asxaabta maxaan dhihi jiray dadweynaha la wadaagi karin ayaa laga soo dhigay marka doraadna gabar kale ayaa ooyeysay oo dhahaysa ninkayga ay dilay meel walba saa aragteen madoobeyd maalin ka soo horeysay gabar kale ooyeysay inta gabdhaha Soomaaliyeed waa ooyayaan waxa ka ooyeysiinayna ma ahan gabdho kale iyo wax Ilaahay u soo diray waa rag Soomaaliyeed marka walaalahay qaariga gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay Ilaahay ha inoo gargaaro horta kuwaad waan ka xumahay oo macnaha cilada gabdhaha kaliya ku dhacaysa waa ka xumahay waxaan leeyahay intaan in ooyay lama arkayo waxa la arkayaa gabar ooyeysa marka waxaan leeyahay gabdhahaas rag nacasiina ayaa helay rag baa helay lama oran karo dad nacasiin oo maskaxdooda haaftay ayaa helay oo garanayn gabar sharaftiya karaamada ay leedahay aan garanay ayaa helay qofkii caqli leh uu garan kara gabar inay hooyadiis tahay oo soo xambaartay oo macnaha wixii adduunkan Ilaahay ka suko sababta u lahaa inuu heerkaas soo gaaro qof weyn noqdo inay hooyo tahay oo gabar Soomaaliyeed waa hooyo qofna de hooyadaan wax la simi karo ma jiraan marka ragaasi waa ragan garanay macnaha dumarka walaalayaal gabdhaha Soomaaliyeed waxaan leeyahay ka fiirsada ragga ala xidiidaysan ama ragga macnaheyn la noqonaysaan nolol wadaaga ama wax walba ama saaxiibka waana ka fiirsataan raggu ma dhameystirna ma wada sinna raggu qaarkood macnaheey ma dhameystiraan oo rihin laakiin raggu de ma wada sinna korka hore rag baa looga wada egyahay laakiin waa ina gudaha hoose kala fahantaa gabdhaha Soomaaliyeed fudeedka iska daaya ragga iska fiiriya macnaha ma garateen qof walba noloshaada looma dhiibi karo bahal baa iska jira druwa baad u gali kartaa marka walaalahay qaariya walaalahayga Soomaaliyeed rag gabdhaheena Soomaaliyeed waxaan leeyahay sharaftiina iyo karaamadiina ilaaliya ragga la saaxiibasaan iyo ragga soo dhaweysanaysa waa in rag ka barataan waa ina fiirsaan noocay yihiin waa ina garataan walaalahay ilaahayna asturo gabdhaheena Soomaaliyeed ilaahayna asturo meel walba aan joogno ilaahayna ceebteena ha asturo qof walbana ilaahay ceebtiisa ha asturo muslima qof walaalka ceebtiisa lama jeclaado marka saasaan in leeyahay walaalahay sharafta badan wallahi waa shaka yaab leh walaalahayga Soomaaliyeed ugu xiran channelkayga xamsa official waa qisa aad u yaab badan bay ila noqotay aniga intaan soo caqlasday oo dhan meel kasta waxa ooyay waa hooyo waxa wiilashada laga leenayo waa hooyo waxa caruurta lagu dayacayo caruurta la ooyayso la daara dhacayso waa hooyo waxa la kufsanayo waa hooyo waxa hadda la keenay in sawirantooda iyo cawradooda saa loo dhigo meel macnaheedu isleeyahay ku fadeexeeya laakiin wax suura galaysa maahan Ilaahay ayaa dadkaas macnaha dumarka wax uga xaq soori doona insha Allah de hadana waa in sheeg waan kala soo hadlay gabdho waxa inay rag ma jiro rag waayada hore xishoon jiray oo hidiyo dhaqanka iyo maxaa la oran jiray asluubta iyo diinta lahaa waa yaraadeen marba haday ku dhirnay inay gabar qabsadaan inay gabar kufsadaan inay gabar boobaan inay gabar dilaan inay gabar fadeexayaan Ilaahay baan ka magan galay Ilaahay naga qabto wix dhibaato wada ummadda Soomaaliyeed oo dhan Ilaahay xiftiyo rag iyo dumar meel kasta ay joogaan Ilaahay baan waxaan weydiisanaynaa in Ilaahay balaayada ka qabto shar iyo shaydaanka waa naga xijaabo Ilaahay barada naga qabto dhamaanteen walaalayaal waxaan idin leeyahay arinta ayaan galabta u soo galay arintaas ay muhiimadeedu aan ka hadlayo inaan ka hadlay ahayd insha Allah waa ka aamusi waayay marka walaalahayga qaaliga idinkana fikirkiina qaybta comment-ka igula soo wadaaga aad iyo aadna oo mahadsantahay sida quruxda badan afiyaashada u daawataan iyo dhiirigelisaan
commentiga quruxda badan igu soo dhibataan aad iyo aad baan kaga mahadcelinayaa waa inuu ogahay walaalayga qaaliga in idinku wax inagu ahay waxaan leeyahay mar labaad iyo mar saddexaadna soo dhawaada channelku waa channelkayga channelku waa channelkiina channelku waa channelkayga maasha Allah tabaarakallah aad iyo aad baa u mahadsantihiin channelkayga waa channelkiina ka wada macna marka waxaan leeyahay sheekada halkaas ayay maraysaa walaalahayga qaaliga intaas ayaan u soo galay maanta oo aan ka aamusi waayay inaan idin la qaybsado maadaama aan waxba u qaban karin gabdhaha dhibaatada soo gaadhay waxaan jeclaystay inaan ilaahay weydiisano in ilaahay balada naga qabto asxaabteedana la wadaago dareenkayga insha Allah marka waa mahadsantiin sida qurux badan ay daawanaysaan ina dhageysateen marka waxaan leeyahay markii ugu horeysay oo channelkayga arkaysaan haday tahay kusoo dhawaada gacmo furan qalbi furan niyad saafiya ugu horeyn channelka gambaleelka u furo subscribe-na sii dheh aad iyo aad mahadsan tahay markaad qaybta fiidiyowyada waxa soo gashina like tahay la gees marin like waxyaalo badan ayaga caawinaysaa aad iyo aad kaaga mahadcelinayaa walaalkay ama walaashay anigu ummadda Soomaaliyeed ayaan wax ku ahay YouTube-kan ayaan ka leeyahay marka waxaan rajeynayaa ina wax ii qaban doontaan oo subscribe-taas idinka free bay inay tahay ina ay wada saari doontaan insha Allah oo meesha aan doono ama aan rabo ii gaari doonto insha Allah aan ka gaari doono aad iyo aad baa mahadsantihiin mar kale maanta fiidiyowga intaas ayuu ku ogyahay intaan fiidiyowgan iyo fiidiyow lamid ah ku kulmi doono waxaan idin leeyahay assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh kulanti dambe xiiso leh